waa banaanbax looga soo horjeedo qaabka qoondada kuraasta taalla ee magaalada Gaalkacyo mid ka mid ah beelaha degan magaalada Gaalkacyo isla markaana deegaan doorashada xildhibaanimo kule magaalada Gaalkacyo ayaa banaanbax weyn waxa ay ka dhigayaan gudaha magaalada Gaalkacyo kaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay socodka gaadiidka iyo dadka waxayna dibadbaxayaashu dalbadeen inay helaan cadaalad ayagoo si qodo dheer uga hadlay hanaanka loo maamulayo kuraasta doorashadoodu ay taalo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxayna sidoo kale banaanbaxayaashu madaxda sare ee Galmudug ka codsadeen in dib u sax lagu sameeyo qaar ka mid ah kuraasta imika loo midlan yahay in lagu qabto doorashadooda magaalada Gaalkacyo daba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay banaanbixii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha Galmudug beeshan kursigeeda aad boobaysid 24 saac haddii aad ka soo jawaabid xaq baan u leenahay meel alla meesha rabnaa kuraasteeda la aadno meesha rabnaa la aadayna cadaalad baan rabnaa cadaalad darro ma rabno waxa la wixii ka dhaca waxa mas'uulka madaxweynaha Galmudug iyo guddiga doorashada oo uu soo dirsaday waxaan leenahay Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo kaligiis mas'uuliyad saaran tahay abti ma seexatay ma xaqiibaad ka dheeraatay ma walaga xoog batay isaga waxaan leeyahay dib iskugu noqon wiilkaas oo abtigiisa aan nahay in maantay arrinkaas oo ay maanta shaqaale u joogto in kuraastooda la booba asagoo ka mas'uula doorashada waxaan u qaadanaynaa arrinkaasi arrin uu ka raaliyahan u qaadanayna mana aqbali doono haddii magaaladan Gaalkacyo wixii ka dhaca ayagaa mas'uuliyaddeeda qaadaya 6 bilood ka hor ayay waxay u ogolaadeen oo siiyeen sareegaas indhaqarsho maantana waxay maraysaa in ay yiraahaan waa gabar waxa weeye ma qaadanayno kursigan hore gabar uma noqon haddana ma ahan mana yeeli doono waxaan ummadda Soomaaliyeed oo Galmudug degan iyo dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda federaalka intaba waxaan u cadeynaynaa inaanan ogolaan doonin waxaan madaxweyne qorqor u sheegaynaa cadaalad waxa shaqayso keenalaan in dhaqasho kursigiisa dadka lama siin karo ma u dulqaadanayno heer Gaalkacyood baan nahay heer Galmudug baan nahay haddaad kursigaas dad kale aad u marisid annaga iyo adiga iswaadayno rubba ku sheegaya halgamayaal naftooda u horay in Soomaaliya dawlad ay ka dhalato oo saakay ugu nolol dambeeya indhaqarsho kursigaas waxa la rabaa in la gabareeyo kow in la dhaco labo beeshiyo qaylinaysa in la ka faramaroojiyo 3 cid walba halkan taagan waa Soomaali waxay u taagan yihiin ninka bilada Soomaaliya ay siisay bilada Soomaaliya ninka ay siisay oo ku siisay inuu dalkan difaaco kursigiisi oo saakay ay rabaan rag hadiyaankeeda ku leeyahay aan ehel u ahayn inay fargeliyaan madaxweyne qorqor walaalow annagu waa ku dooranay haddaan ku dooranay cadaalad baan kugu dooranay cadaaladii baan ka rabnaa shiiqal qaylinaysa haddii la arko qayladeedu waa sax Soomaali waa ogtahay ka yeeli mayno ka aqbali mayno waxaan u sheegaynaa faragelinta kursiga dad ku hay inaanan yeelinin inaanan aqbalaynin nin aan jaranka aan ahayn inuusan imaanaynin waa diiday yaa lagu soo luguin marna suurtagal maaha inaan ka tanaasulno qorqor sida ugu dhaqsiyaha badan kursigay baa uga baahannahay hadduusa keenin wixii dhaca asaga kaliifay kursigeena ha noo keeno naagta Soomaaliya sharcan Soomaaliya laaluushka bixinaysa anaga nama matasho nama doonayso mana doonayno gurigeeda u baahan gurigeeda iyo carruurteeda ka shaqeyso ha ku aanbaxle cadaalad ku aanbaxle idwal baba adkeelasi cadaalad ku aanbaxle idwal baba adkeelasi qarshaha janaka ay qabadkiisa awoodda Soomaaliyeed oo qiraan hadduu maanta qadaa oo haqadee la qarshay haween qolka la keeno qaadan mayno xumaanta qoorsi waan u arkaa banaanbaxani ayaa ku soo aadaya kadib markii guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed uu xalay shaaciyay qabashada 5 kursi oo kamid ah 12 kursi xubinimada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadu ay tahay magaalada Gaalkacyo isla markaana qaar kamid ah kuraasaasi laga dhigay qoondaha weyn mid kamid ah beelaha kuraasaasi iskala ayaa ka soo horjeestay kursiga loo asteeyay inuu noqdo qoondada haweenta waxa ayna ku taageereen doonista kursigaani ee sareeyo guuto ama sareeyo gaas
daahir aadan cilmi indho qarsho oo loolan xoogan ugu jiray kursigaani isla markaasna guddigu ay sheegeen in kursigaasi uu ka xiran yahay uuna yahay qoonda dumar waxaana bannaanbaxayaashu ay dalbadeen in si cadaalada lagu banneeyo lagu madax bannaaneeyo kursigaani beesha qoondada iska leh lama oga sida xaalku noqon doono wax guddigu ka dhihi doonaan iyo in la aqbali doono baaqa beeshani cali maalin telefishinka Home Cable gaalka